Petronella waa saxafiyad iyo qoraa u dhalatay dalka Ingiriiska. Waxa ay sheegtay inay ka shalaynayso inay gabowday oo aanay caruur dhalin iyo inay aamintay fikradda haween badan lagu lugeeyay ee feminismka. Saxafiyadda reer Britain Petronella ayaa wargeyska Daily Mail ku qortay maqaal ay kaga qoomameynayso nolosheeda iyo dhibaatada iyo mugdiga ay ka dhaxashay aragtida feminismka oo ay u ololeyn jirtay. maqaalkeeda ayaa dunida oo dhan qabsaday kaas oo dood badan dhaliyay. Petronella waxa ay maqaalkeeda ku bilowday sidan: waxaan ahay haweeney jirta 55 sano oo aan weli guursan oo ilmo la'aan ah oo weliba kalinimo ku nool. Fikradda feminismku aniga iyo facaygaba jiilkayga wayna khasaariyeen oo noloshayada ayay fashiliyeen. maalin kastoo Isniina maqaaxi London ku taala waxaan kula kulmaa koox dumar ah oo aan saaxiibo nahay. waxaan ka wada tashanaa oo ka doodnaa nolosheena gaarka ah. dumarkan saaxiibaday ah wax badan ayaa naga dhaxeeya oo aan ka simannahay. waxaanu nahay dumar ku jira da'da kontameeyada. waxaanu nahay dumar shaqaysta, wax bartay, oo aqoon sare leh, oo magac iyo maamuusba leh. laakiinse nolosheena marka dhinaca kale laga eego waa mugdi. waxaanu nahay dhammaanteen dumar aan guursan oo aan wax caruura lahayn. halkudhigyada dumarka lagu khiyaamo ee yiraahda noqon naag xooggan oo madax bannaan oo maqaam iyo magacba leh, waxyaabahaasi dumarnimadeena waxba uma tarayaan. inteena raacday fikradda feminismku waxaan ku dambaynay qoomamo. dumarka waxa la geliyay dagaal lagu feerajibiyey oo aan dhammaad lahayn, waxaana shidaal looga dhigay halkudhigyada ay ka mid yihiin strong woman. aan kugu daree in badan oo dumarkeena ka mid ah in muddo ah ayaa la yiraahdaa waxa tahay haweeney adag iyo wixii la mid ah. haddana sifooyinkaas iyo kelmadahaasi ma jiraan waxay inagu soo kordhiyeen. ma jiraan waxay naga bedeleen muuqaalkeena jir ahaan, tamar ahaan, ama inaga bedeleen asal ahaan sideenni ayaan nahay. marka maxaynu ku daalay? anigu shakhsiyan waxaan ka shalaynayaa inaan aaminay fikradda feminismka. haddaan ogaan lahaa in natiijada feminismku sidan tahay waan diidi lahaa. fikraddan dumarka lagu khiyaamay maanta waxaan ka jeclahay ma jirto inaan hooyo noqdo, laakiinse ma hubo inaan haysto fursad aan wax ku dhali karo. waxaan ka shalaynayaa siday nooga dhaadhiciyeen inaannu quursanno guurka oo aan diidno inaannu wax dhalno. dumarka waxaan kula talinayaa inay ka fogaadaan fikradda feminismka ee lagu dhagray haweenka. waxaan hubaa dumarka reer galbeedku inay iska dhaafi doonaan falsafadda feminismka oo noqotay halaaga iyo waxyeelada dumarka. ragow cadowgeena ma tihin. ragow waan idiin baahannahay. dumarka xilligan nooli waxaan hubaa inay doonayaan inay caruur dhalaan oo ay noqdaan xaasas guri jooga, housewives. Trust me, we need you. aragtida dhadignimada feminismka ee aan muddo u ololeyn jiray waan ka haray. taas beddelkeeda waxaan ku biiray ololaha looga soo horjeedo aragtida dhadignimada feminism oo ay hormuudka u tahay Regenty. ololahaas oo halkudhigiisu yahay ragow waan idiin baahannahay. waxaan doonaynaa inaan caruur dhalno. waxaan doonaynaa qofna difaaca oo aan iska garabsanno noloshan dunida ee aadka u adag. ragow kulligeeyo waan idiin baahannahay, mana kala maaranno. waxaan hadalkan ka soo xiganayaa hadal cajiib ah oo ay dhowaan faafisay Regenty. waxay tidhi ragga waxgaradka ahow ha nooga tegina feminismka iyo kuwa wax idiin sheegaya, kuwaas oo idiin sawiraya inaad u malaysaan ama ku fikirtaan inaanay dumarku idin rabin. dunidan waxaa ku nool maanta malaayiin dumar ah oo daawooyin qaata si ay farxad macmala u helaan. waxaas oo dhiba haweenkaas waxa u geystay dhagarta aragtida feminismka. malaayiin dumar oo anigu aan ku jiro ayaa maanta aad uga xum inay waqti dambe ogaadeen lugooyada feminismka. dumarow aynu xaqiiqda u laabanno. Do not let make you believe that you are not wanted. It is far from the truth. Trust me, we need you. qoraaga iyo saxafiyadda reer Ingiriis Petronella ayaa hadalladan dunida soo jiitay ku sheegtay waraysi
ay siisay GBN TV iyo maqaal ay ku qortay wargeyska Daily Mail.